ku soo dhawow xog waran news. fadlan haddaad ku cusub tahay janalka subscribe saar. 2 bilood kadib saxiixa heshiiskiisa oo afjaray iskahorimaadkii uu beesnaa Nagorno-Karabakh, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu qaabilay madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev iyo ra'iisul wasaaraha Armenia Nikol Pashinyan aqalka Kremlin. Putin ayaa sheegay in heshiiska nabadeed ee sida wanaagsan loo hirgeliyay uu asaas u ahaa in si cadaalad ah loo xalliyo khilaafka, isagoo yiri xaaladda gobolka way degan tahay, wax badan ayaan ka qabanay oo ay ugu horeyso dib u soo laabashada gudaha dadka ka barakacay, iyadoo in ka badan 48,000 oo qof ay ku soo laabatay Karabakh laga bilaabo 14 Nofeembar. Ruushka wuxuu dhexdhexaadiyay isdhaafsiga maxaabiista dagaalka iyo meydadka labada dhanba. kulankan Kremlinka ayaa ahaa kii saddexaad ee dhex maray Aliyev iyo Pashinyan iyo kii ugu horreeyay tan iyo dagaalkii dhiigga ku daatay ee Nagorno-Karabakh deertii lasoo dhaafay, halka ay ka dhacday colaad galaafatay nolosha ugu yaraan 5,000 oo qof sida laga soo xigtay xogta uu soo bandhigay madaxweyne Putin. Dagaalka oo socda 44 maalmood, ugu dambeyn Azerbaijan oo taageero ka helaysa ciidamada Turkiga ayaa dib ula wareegtay inta badan dhulkii ay sheegatay Armenia.